لا حول ولا قوة إلا بالله ورميل في استنمي وهدو إذا حسوسين أيه أنا حتى وصوتها قريه وصوت ماركتين شيطان كناكتا ماركتين شيطان كناكتا ماركتين سوروال شيطان كإيدده سوروال ما أنت الشيطان ماذا إيدده ودم بنكر باشينا all إيدو مجرت بحاسو كل إيدو ملاد هي شيطان ناك سكسور اختودات مسكينة أو إلما هيسته إلا إلمي إسكدشوه سوروال waxaasoo kaleeta aan ka sheekeynaynaa nimayo soo dhawaada wallaahi bilaahi tallaahi eedaan la yaaban maqli jire midaan la yaabe arxankeedu darana wareer wuxuu maxay ahayd madad cun bay ahayd nimayo midda kale ma aragteen gabar weyn oo 19 sano jirta oo 9 sano ay guri ku xirtay aabihiina meelahan iska wareegeysanayo beebi gabadhaadu waa fiicantayda lagu hayo عاداسي مريسا لغو هايو فعلنا لغا ريبي ما أركتين ألا نين محاها است نمان كمينا عروض اسك دايانا كبقيا هديني عروض دلان بين اسك دافانا كبقيا ولا ويلكي نحايا حواح سلوة بايمان ويلكي نحايا المهيس هو يوسو كو آمنين كما بدالا يابا دابركيسا ugu jirayaan maanta message-kan dirayna ila soo dhawaada message-kan waxa iskale raga hooyooyinka eedooyinka shaydaanka ah ifalka ah eedo waxaasoo kale lama yiraahdee ilmaha cuna ya oo ninka ilmaha ku dira xasman ka hadli karnaa ilaahay baan ku dhaartay kama hadli karno ma balaga hadli karabo subxaan allah soo dhawaada walaalahey qiimay qayaalow walaashiin wuu ogahay waa waqti dambe asxaabteydii aan reer Soomaaliya waa seexdeen laakiin muhiimka waxa waaye inaan soo galo imale insha Allah ii soo dhawaada alxamdulillah ilaahay wax kama xumaadaan dadka xuna la yiri walaalahey soo dhawaada maanta waxaan rabnaa inaan dul istaagno eedooyinka xunxun eedooyinka fiican ma taabanayno eedooyin fiican dabcan waa jiraan laakiin ma badna ogaada ma badna research la sameeyay baaritaanka la sameeyay eedo aaba qaba oo fiican waa jirtaa laakiin waa lambar aad u yar waaye waxa badan na maaragtay major dadka markii wax yar iyo wax weyn laga hadlayo wax weyn baa laga hadlaa wax weyn baan ka hadlaynaa dibku meesha u badan yaan ka hadlaynaa ii soo dhawaada ila si share gareeya ila si dirdira eedooyinka ayaan rabnaa inaan message gaarsiino aabayaashu ay qabaan aabayaasha ilmaha leh oo intuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ilma siiyey calafka hor kala dhamaaday ilmihii ama aabaha inagastigiisa degan yihiin ama istiluu gacanta ku haysto ayaan maanta maaragtay ayaan ku istaagaynaa insha allahu tacaala iyo xaqa ay cunugu eedadaas aabihiis qaba ku leeyahay iyo dee aabaha laftigiisa xaqa laga rabo mar ilma aab hooyada hadii laga reebay ama soo weyn xataa daris kula ahaadee marnaba inuu aabaha uusan indhaha xiranin hadda yaandhowda waxaana soo martay 2 cunug yaryar oo isku leeyahay oo la qalay wada weydeen waxa wiigaan labadan dhacdo ugu aad u xanuun badan baa wiigaan jira oo midna ay tahay gabadha 19 sano jirta oo wiil iyo gabar xitaa la kala garan waayay Hargeysa iyo wiilkan xamar lagu dilay xalay la dilay aabihiis waxa bada ku dhuftay because of her shaydaan weban naag shaydaamada daraadeed waxa bada ugu dhufta bal walaal xagu weel baneysanahay ya meesha u weel baneysanahay ajaayib meesha u weel baneysanahay la rabaa wiil maanta 12 jira oo u shaqeynay oo xaas leh oo inta uu ku soo dhimanayay naag ifal ah daraadeed aba u dilay wala asagana waxba ka sii noqday laakiin waxa rabnaa inay qof dambe saas ka noqonin soo dhawaada walaalahey qiimahan qayaaro soo dhawaada noo share garay insha Allah taala hopefully saxaabtu ma ay ku jiraan saxaabteedii maanta ma ay soo gelin I don't know why they are not there because hadda waa habeenimo weyn dadkeygana waan idin sheegay waxay u badan yihiin Soomaaliya barna duurkii markay meelaha duulayso ya ayay saxaabteedu ku jiraan hadda ma ahan hadda waa habeenimo Mareykan bas soo jeeda anigana Mareykanka aniga reer Mareykan col baan nahay oo dad badan kuma lihi guys waa inaa saa u ogaataan
dadkayga ugu badan Soomaaliya joogaan markaa soo dhawaada asxaabteyda qiimaha qaayaalo ii soo dhawaada insha Allah ilaahu rabbiyow qofka wax noogu darto qof wanaagsan ka dhig wax ilmaha naga dhibaatay ilaahu wax noogu darin ilaahu wax ilmaha naga dhibaatay wax noogu dar ilaahu wax ilmihi anaga isku kaaya dir wax noogu darin wala aabo howl baa ku taala wala aabahayo arkilayga beero arkilayga beero so waada saxaabi iska soo dhawaada khayr badan Allah idin siiyay ii soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim wadana ya baay kuma daahay sharaf baay soo ii soo dhawaada adigana amaal ismaa'il muuse soo dhawaada la shimcaan adigana maanta barna muuse aad guriga markay joogto waxa waaye qabteeda iyo qacdeeda iyo ciyaalkeeda ceyradooda waa diyaar saxaabi maanta waxaan rabnaa inaan dul istaagno haddii ilaahay uu dadku siiyo aabow hadduu ilaahay dadku siiyo oo qadar dhacdo oo ilmihii qaab ay kuula joogaan waajibka kaa saaray intee la egyahay qof kasta ilmaha kula haya ee adigu aad dooratoo jeclaatay oo xaaskaaga ilmaha kale kuu dhalaysa ilmahaaga sidee bay ku tahay ilmahaaga sidee bay ku tahay walaalkii xagga iga soo gal kuwiin waa ku salaamay sweetheart bashka ilmahaaga sidee bay ku tahay warmaanta waraakaasaa fadhina maana soo wacdina daartin warna daaye mar allaala markaan soo galay igu soo yaacaan inta ma iska soo galgashaan hadda intaa laydinka rabaaye daqaacdi soo dhawooy war intaa layga rabaa inta soo gala nimayo iga dhamaada haddaad Soomaali maxamediya u dhalat ma fahanteen xaqan waa maxay maantaasaan rabaa inaad dul istaago maku daahayi aan laftigay waan yara degdegsan meel baa u socdaa adinkana waxa i dhibay markaan wax arko waxaan jeclaa inaan wax ka iraahdo inta aanan ilaawin waxaan arkay wax caadiya maysan hayn dabcan adinkana waa ila aragteen laakiin waxaan rabnaa inaan wax iska dhahno soo raqda rablaalo ida maxay ahayd inaan wax iska dhahno waayo wiilkaas waad aragteen ilmaadeerayaal horta may maqlaysaan saxaabi hopefully inay maqli doontaan insha Allah gurigeyga iftiin iyo dhagax waxba iska kay haya israel iska ahaada soo dhawaada raalina ahaada oo iska raali ahaada saxaabi waad aragteen umalina horta may maqlaysiin isoo qaraha hadda ay maqlaysiin isoo qaraha la hawla wala quwwata did I tell you hadda war rabti inta soo gal thank you aad ba maadsantahay qaliil muxsin waa maadsantahay hadda ay maqlaysid maanta waxaan rabnaa saxaabi inaan dul istaagno dadka aan ducaysnayn dadka alla wax ugu daray horta waxyaalo badan aan fiirfiirinay xabil xaqiiqa eedana historyyaal badan bay leedahay iyo heeso badan eedo history iyo heeso badan ay leedahay waad noogna anaga dhan wada ognahay eedo aaba qabo history badan iyo heeso badan ay leedahay ma rabno marka inaan dib ugu noqono eedo macaan heesaheeda wallaahi de soo dhawo walaalkay maalin walba waxbaan walaashay Faadumay walaashay macaan maalin walba waaba meelaha islaantan waa iska imaataa ma badni waa runta lifekan uma badni jaaniska iska yar laakiin waa soo galaa abay macaanto maantayto khayr Allah ku siiyo isoo dhawo hadaad arkin hadda maama isoo dhawo hadda arag insha Allah taala aan ila soco insha Allah taala
إدوك سلام maxay ahayto horta nimayahow iyo gabdhayahow arrimahaas kale markii aan arko aniga aada ugu murugaa aada u naxaa waxaan la yaabaa dadka inaysan cadaalad ahayn qof ilaahay abuuray oo ilaahay subxaana watacaala og inuu la xisaabtamayo oo haddana aan caadilnimadu saa uga fog tahay markaan arko aad ayuu ii murugeliyaa ها ولا شيء مثلاً وروح لقى يا أبو واي لكن وحيالها يركا قبل لو دوق هذا الكلام لكن المير وكبرة وإلهي كوجا أمانة سنين كاو أو دلي وهرت أنا وحيالها مسكحي هذا كورة ما نكلم كليب كسمية حسوستا وحن ليا بهوين كالصومالي ده عقل حمضة ده هوين كالصومالي ده عقل حمضة كدرته والله كل جيت كم كاميرا ولا يابا ناقا ننجع لانيسا هالكاس أو حاصل أو ضل أو الملء أو هكاياعية مركزي جيد قاموا وحي أكريسا هيركسني يدمسو ومحار هيركا قدميسا ما ننكل وكل جيس سكراتت متفاضي وعندك وجهيسا ولا المعنى سكراتت هذا سنين كان جعلات المهالي وهيركالي محار هيركس دمسو تشكا صاري وخيرك وحب laga yaabaa in somehow inuu dumo ama si wax noqdaan ama whatever ilmihii bay mutaysanaya gabadhii haday rabto dhimatay duminta iska dhaafiyaan haday rabto gabadhii dhimato ninku qabay colaad ay u qabto bay ilmahaas kula dul dhacaysaa hadda ayadu waxay rabtaa inay ninka haysato inuu jeclaado inay ilmo u dhalo ilmo u dhasho inuu ilmaha dhaqaaleysto inuu bes aaba noqdo inuu ayadu u fiicnaado ayay doonaysaa ilmo yar oo sabi ah oo qofkii aad jeceshahay ilaahay ka soo gooyena colaad baad u qaadaysaa waa aad dilaysaa waa aad dacdaraynaysaa waa aad xumaynaysaa dadka miyayna fakerin dadkaan ilaahay abuuray maskaxda horta marka ugu horeysa markaad wax samaynaysa kor inta meel fadhiisatay soo inaad isla hadashid maahan seeb ku dhici kartaa qof aad jeceshahay qofkiisa inaad xumeyn ninkaaga ilmihiisa xumaa ugu quuri kartaa because ninka adigu ku qaba adigu nin waa jeceshahay maaha of course Soomaali maxay dhahdaa maamahayooda qaldan qaar badanaa qaldan dadka qaar baa true ah jira hala tan oo kale waa true qofki aad jeceshahay Soomaaliyeed aygiisana waa la jeclaadaa that means aygu innocent miskiina waay laakiin waxaa laga wadaa ninkii aad jeceshahay hooyadiis waa inaad jeclaataa walaashiis waa inaad jeclaataa اكستيسي حتى هدو جعليها وين كذا بجعلاتها إلا أنا جعله اكستيسي هدو جعليها حتى إن نبت جلسات قصبتها حسوسنا هذا حديث كنا بعد سلام خديجة هلا كره لا هذا ناكتي بريقي خديجة وإيمان جرتي يا مركي أوتي مع صوب وختي وعاشي ناس وقدر يامي حسوسنا هذا وحقولي حسوسنا هذا وحوير so I don't understand أنا كصومالي وين كود وحكي قلدان ما كلام أيوه ويبسيك الدرين مرك ويبسيك الدرين مد كبودة مد عنقين أكتي وكلا تجين بشح ما يسقيه مد حاجة تقيه لكن مركي أي عنق إني يدشوا إكستريم لقعدوا سجال سنة أنت تقول كحرتو نرول يجيري ودحيو يا نرول يجيري ودحيو وعجائب يا مدن وانت قصدي ده not excited I understand but أباي سيشة كذا صدوات هذا نا إكستي سوتش عليه هذا المال بكل ده إيش صار بعته معهن سقف وسوق ما نعيو that's what I mean yes أنا إكستي جعلانين لكن إن كان ناقو جعل إكستي هذا المال بكو 50 ده أنا ماشي كبي حيسي so لدم جو سوق جعلان لا هذا ماشي تميل جعلات نكاني نك على جعلات أسوق ناقب وإكستي عرور على سوق أدي هذا سوء أدي واحد قال إسكول قصد واي ضد جم إلا هذا الباب كان سوق راعي الباب كان سوق راعي يم إلى تلهز واي لكن غير إسلام بنقلية والله يفور الهنجري مستقبل الهنجري جعله الهنجري دون ورا الهنجري بان داقت شبكة صور هيا أما كاب كستان سوق قلية هدنا wax la ruux agti soo mara xaraasaya cunugan iga fakaneen naag baan iga waxaan ma imaan dhaweed ee gabdhi ii sheegayeen
ayaan dhow sheeko dhacday magaaladeenan gabadh iyo wiil sanad hore dhowr sano ka hor kala tegay baa gabar mar dhow guursataa la yiri wiilkii markaasay waxay tiraahdaa linaagti hebel uu waagii furay halay tuso walaalay maxaanay naagti hebel u furay halay tuso naagti waxaa gaaga naagti hebel furay asagaa furay maadaa furtay hal saacan qoslaay saa maxaad ku tirahdeen walaalay maxaanay way raadinaysaa taas waxaa la rabay in lagu soo noqdo ninka anoo dhan naagtas ahaan lahaa intaa ninka ku noqdo baa ayada ka furi lahaa ilaa masiibada ayadaa raadsanaysa masiibo kaasi jeeda lama raadsado wala iska dhaafaa xasbi allah wa nicma alwakiil marka waa cajaa'ibaadkay ka mid tahay marka maanta waxay muhiimku wuxuu ahaa aan u socdo waxay ahayd ilmo yar hadduu alla gacantaada soo geliyo horta gabdhahana mid baan ka leeyahay arrintan raggana mid baan ka leeyahay internal wixii kaftanka iyo qosolka markaan ka bixino serious bonding markaan u dhaco gabdhaha hal kalmaan ka leeyahay wiilashana laba kalmaan ka leeyahay labo ayaan ka leeyahay gabdhaha ayaan ku waday ayagaan ku hormaraya ilaa already ayaga karbaashkaad aan ku waday sister nin Soomaaliya jooga oo weyn oo ilaahay abuuray oon caruur u qarsoonayn ama oo banaanka u oole ama luuqa ugu jirin ma jirto anu ma sheegin wiil yar iyo gabar yar oo iskuursanaya ayagaaba wiilasha hadda Soomaalidu 15 sano jir caruur bay leeyihiin 15 jirada xataa caruur bay leeyihiin hadduu ilaahay nin caruur la kuma kansiiyo ilaahay uga baq caruurta ilaahay uga baq berri inaad dhimatid baa la arkaa oo ay kuwaagana mid kale ay aadaan berri inaad dhimatid baa la arkaa oo kuwaagu ay gabar kala mutaan marka aad wax samaynaysid qalbigaaga waxaa lagu xiraa ilaahay ka cabsiga soo walaal ilaahay ka cabso marka aad wax samaynaysid ilaahay ka cabso waxa aad kasta oo aad cunugaan in loo sameeyo aad jeclaan lahaydna walaal u samee cunuga ilaahay kuma kansiiyey ama eeda oo ninkaagu ha dhalo ama walaashaa ha dhasho ama walaalkaa ha dhalo cunuga alla gacantaada uu geliyey ilaahay uga baq gabadha Soomaaliyeed kulay dhigama qabtiini xaqana kama baqdaan oo gabar ilmo hooyo ka horeysa dhashay iskama daysaane ilaahay uga baqa ilmaha walaal ku dhalay ilaahay uga baqa ilmo yar oo saqiir ah ilmahaaga waxaad markaad cunugaaga biyo siinaysid xasuusna hadduu cunug ilaahay ku makansiiyey mid kuu soo wareegayba ha ahaadee uu joogo ogow maanta meeshuu taagan yahay kaaga inuu beri taagnaan doono haddii aad doonaysid inuu ilaahay kaaga kuu xafido midka maanta gacantaada soo galay xafid oo ilaahay uga baq inaad dishid iska daa waa extreme inaad guri ku xirto gabar inana quruxdeeda aad yaabayso 19 jir meesha gabdho ugu quruxda badnaayeen maraysa rag iyo dumar loo kala garan waayo uqubadaas meel ma aadayso Soomaaliya waxaan ognahay oo lagu shaqeyn jiray gabdhaha hooyadood ay saamaka laga dhalay ayoo ku gabdho ay joogaan waa looga roon dharka looga roonaan jiray dahabka looga roonaan jiray hawsha looga roonaan jiray xataa qowlka macruufka looga roonaan jiray oo hooyo maxaan heblaayo gabadheed heblaayo waay naya hooyo orod adigiina watii xumeed aa naagti dhashay ala dhigi jiray aniga waan arkay 100 times ilaahay ka cabso gabadha Soomaaliyeed haddii aadan ilaahay xaqso aad ka baqayn caadilnimo qalbigaaga aysan ku jirinin wiil ilma leh guursan absolutely guursan mida ilma lahayn iska raadso haddii aan qalbigaaga cabsi aysan ku jirinin fadlan ha guursan wiil ilma leh ilma hooyadood laga kaxeeyey fadlan walaal macaan ha guursan waayo waxaad ogaataa aniga dadka u sheegay 100 times wariyahay aniga oo kiyaashi aniga ayaan dhaweydaan dagaalay arga hoos oo dhan uu iga dhuman mad fahanteen ha waruna baa imaan damsa abu ha qalid wa mus ha walaalka warunta ilaahay baa cadaalad fali doona haddii aadan qalbigaaga cadaalad ku jirinin
أما آدن إسلهين هدي ويل كان because أجو حتى هدي هو يد المها أي هيسته هدي هو يد المها أي هيسته أجاده وحال جيابة فكيش إنه كوجو كانوا وحال جيابة إني المها ولا عليه كلا سؤال كيا كلهان سيني كوجي مادام بعد إكرته هدان قلبي قاعد عدالة كتشرين أما عقد يحمان يكجرتو لين الملأ نعبت هاي والرجل الصومالي اللي المي ودليه هيني اسك درب مدة كان قبلها الصومالية دو مسكح لينا وأنا عشان وفيو بيسيسان مسكح لك جرنتين نين عاد عرور كربت عروتي سلام حمايو حداد نين عاد عرور ولا شيء عروتي سأد حميسد إلهي عدالة فلواي كواغا كوكو حمانايا إلهي عدالة فلواي كواغا كوكو حمانايا حداد الماء عاد والد وتهي آد حميسد إلهي عدالة فلواي كواغا أيا كوكو حمانايا ولا شيء إذا مسلمة داهي إلهي وحو قعنتها سوق الشيء وقبق وقرونو المهاغا هدو إلهي ننكا الميسا قعنتها سوق اليوم waxaa laga yaabaa inay kaaga roonaadaan waxaa laga yaabaa kuwa adiga aad dhashay kuwa aad si fiican u koris inay kaaga fiicnaadaan oo ninkaagu dhalay ayaa laga yaabaa kus ilaahay xaq soo rawaa haddaad cadaalad fashid ilaahay cadaalad buu ku furayaa laakiin walaalayaal hamslaamkaahu ilmaha odayaashiinu dhaleen ka fogaada كفوق هذا نن عنق لك كفوق هذا عدالة سبعين هذا قلبي قال نعيب كتير قبر الله سند لبصر كورني متى أن المهد حمام كوجو جرتو نن كاسي واسوق بيجري أما قبر لبصر كور لفري كوجو جرتو نن كاسا ناكتاس كوجو جرتو ولا المعان اسكت ضيدي ميدا ناق لهن وذهل دون تاي كضيدي يا مقالة تاسوا قبله إيو الله كعبسو وحكو سهري ويلش horta wiilasha Soomaaliyeed wax ma maqashaan qaacida aad u liidatana waad aaminsantihiin waan is wada ognahay qaacidada aaminsantiina waxay tahay intay tagoogteedu ku jiri lahaayeen tubta ha taaltaalo waa hadda koorna waa idinka kala hadlay ilma tub yaala inaysan waxba ku tareen waan kuu sheegay ilma aada korsan inaysan waxba tareen waan kuu sheegay wiilka Soomaali ilma aada dhiigaaga u hur inaadan aabbo u ahayn waan kuu sheegay haddii hore aad ogeydna anigana waan kuugu soo celin sida xadiisii kugu dul akhrin ilma aada korsan is not your child waxa ku soo haray ilmaha hadda sida dhacdo kala maanto kale taa ilma aad ku soo tiiri tacbeeshay Soomaali hadda miro guntaada ku jira kuwa geed saaran looma daadiyo horta walaalka maanta wiilkiisa dilay asagiina booliska isku dhiibo oo maanta ilaahay og yahay wax uu mudanayo hadduu la daayana dee aakhiro ka horeyso oo ma ku tiigsanayno qalbigiisa Allah u qaboojiyo shaydaan baa ka adeegay shaydaanka subxaanahu wa tacaala ha maartay iimaanka Allah geliyo wiilkii qaangaar buu ahaa dhintay Allah u naxariisto martii la jecel yahay Allah ka dhigo naagta dhibaatada iska dambeysana xaqa Allah ka soo saaro naagta aabe iyo wiilkiisa isku dirtay naagta wiilka in la dilay ka dambeysay ilaahay mucjisaa ku rido family bay baabi'isay aabay maantay sharaf lahaa bay xabsi gelisay wiil masaakiin ahay daraadeed loo dilay waa arrin aad u daran walaalahayga qaaliga ah waa arrin aad u xun oo xun qofkii aan arkin waxaan ka hadlayay wiilkii xamar lagu dilay oo aabiis u dilay oo eedays ay ku soo dirtay afayeenka dumarka habar macaan ii soo dhawow amaalay saade iyo dadka kale ku jiro Soomaali soo dhawaad gadaal iga soo gado maanta waxa ka hadlaynay waxay ahayd naagtii ku dirtay ninkeeda wiilkiisa oo uu kow kaga siiyay walaalaha waxaan leeyahay horta ilmaha hooyadu daayay haddaad kollayta aadan ku aadan hayn karin oo hooyada ilmaha isku hayn karin hooyo kasta ilmaheeda loo daayo hana lagu dhaqaaleeyo meela aan dhaqaalo u baahan baa jiro hooyada ilmaha haysan karin Soomaaliya rageedow ha lagu dhaqaaleeyo hooyada ilmaheeda haddii se qadare ay dhacdo oo ilmuhu ay gurigaaga yimaadaan vacation baa ku yimaadeen qisaan idinla wadaagaya 6 sano ka hor
ayaa wiil aan dhalay wiilkii wiilasha u weyn Saliim aabihiis vacation u raacay aabihiisna markaas ka hor wax yar buu arkay dhowr jeer buu arkay laakiin ma badnayn intuu arkay aniga ku qalqaaliyay inuu Soomaaliya geeyo cunuga samarkaas uu soo siiyo oo isi soo baro oo asagana 13 soo gaarayay oo maaragtay uu cunugu uu aabihiis ana ka dambeeyay oo ku daray ilmuhu waa cajaa'ib ilmaha waa cajaa'ib ilmahan anaka ma balihin waa ilmo kale hata aan haysano aabahaas ilmahaas dhalay bilxaqiiqa aaba xun maahan laakiin waa typical aaba Soomaali waa aaba Soomaali wuxuu aaminsan yahay naagtiisa waxay tiraada bas uu aaminsan yahay aaba Soomaali naagtiisa bas uu aaminsan yahay familka inta u dhaafimayo laakiin waxbaa jiray cunugii waa isla hadlay cuqdad buu qaaday cuntadii uu cunay cuqdad ka qaaday cunug wuxuu ahaa wiil reer u weyn reerka dhan wiilka ay u weynaa laba gabdhood ka weynaa Amerikaanka maxay dhahayiin wiilka hooyada mama boy wuxuu ahaa wiil hooyo hoosta ugu jira wuxuu tagay meel kaleeto wuxuu tagay ilmo hooyad la jooga laakiin aad uga yar kuwa la eegay haan la waba iga dhiman lahaaba no maleynaya wuxuu soo noqday isagoo aad u soo caatoobay which aniga aan rabay inuu soo caatoobo timihiina ay ka biibeen hooy maxaa timahaaga saan u biibiyey timahigir uu lahaa maxaa dhacay mataqaana waxay ga biibiyayaan ku jira yaan horta aamusna muddo 2 sano waxaan dhijin way maxaa kugu dhacay ma nooga sheekaysid xamar markaa tagtay ma reerkii nooga sheekaysid ma ilmihii nooga sheekaysid ma ka nooga sheekaysid nooma sheekeeyo yam siisan waa nin aamusan aduu muddo ka bacdi wuxuu yiri mataqaana waxay ku dhacay maya timaha waxay ga biibeen mataqaana inuu Saalim maya si nutrition laan bay ga biibeen ilaa hadda maskaxdaydii maxaa ka wadaa hooy adi ma fahmi kartid iska dhaaf igu yiri okay aan ku dhaaf laakiin maalinta ma noqonayo yiri horta adoo nabdoon ma imaateen ku yiri alxamdulillah marka waxaan ka wadaa ilmuhu xataa ayagoon wax la yeelin baa laga yaabaa inay nature u cuqdadoobaan markii hooyadood ka soo tagaan hooyada kale u yimaadaan soo hooyada marka waxaa laga rabaa more attention inay siiso cunugan u yimaaday muddo badan lama joogi doono ama ilaahay uu makansiiyo muddo badan la joogayaba mooradan intii ay siin lahayd keerkeeda inay kan ka hormarsiiso because kaaga inay cuqdad kaa qaadin baa la arkaa laakiin kan kale tuu kaa qaadaya cuqdad kan kale cuqdad buu kaa qaadaya kaaga sin cuqdad kaa qaadin baa la arkaa soo haddaadan simi karinin kan martida ku ah u badnow muhiimada taasi ahayd walaalahayga marka waxaan idin sheegayaa haddii aad cunuga geysaan guriga hooyada ku halaynina hooyada ku joogta walaasha ku joogta xaaskaaga ha ku halaynin cunugaaga walaalkayga muslimka ah ma ogaan kartid waxay ku sameynayso naaga ifalaha jira oo 7 waji leh wadna ogtiin muufiyada lagu jiraa iyo riwaayadaha Soomaalida naaga shaydaanaha jira fadlan ha ku halaynin cunugaaga xaaskaaga fadlan ha ku halaynin qaab adigu cunugaaga gacanta ugu haysato yeelo haddii kale gee meel kaleeto oo uu ku kalsoonaan karo haddaad hooyadiis ka soo qaadatay ama hooyadiis ilaahay kaa qaatay walaalkay oo hooyadan si kasta naag adi qabtid cunugaaga ha ku halaynin taas aan meel idin kuu sheegaya ha ku halaynin naag aad qabtid cunugaaga si kasta ku jeceshahay cunugaaga ma jecla naag Soomaaliyeed ninay rabtaa cunug ma rabto naag Soomaaliyeed ninkay rabtaa naag dhimatay 20 sano koor xataa waa ka masayraysaa markaas ciyaalkeeda la dagaalaysaa 20 sano koor mid dhimatay xataa masayran aan ka qabnaa marka walaalkaygo ha isaga dhiibin xaaskaaga ilmahaaga xataa 30 sano hadday jiraan ha isaga dhiibin marnaba ha u dhiibin
bil hadday jirto iyo 30 hadday jiraan haddii adigu weli ay gacantaada ku jiraan oo ayna kaa teginin oo ayna kaa guursanin fadlan naagtaada ha ku hadlaynin ogow naagtaada saaxiibada ma ahan ogow ilmahaaga saaxiibkood ma ahan wax maalin walba sidii aad cunugaas idin kala jari lahaayeen ayay ku jirtaa boqol wajiye naagu leeyihiin naaga ifalaha jooga iska ilaaliya iska ilaali yeena cunugaaga gacantaada ku dhiman sida maanta dhacdo kaleeto yeena gabadhaada aad ku xaragoon lahayd maantay 20 sano gaadho ay aan maartay ficil laga reebin naag feeruntaas leegiina bariis aad leedahay cunaysay cunugaaga gurka qolka iyo ku soo xirin cunugaaga ilaasho gabadhaada ilaasho ilaahay aduu kaa beeray jirkaaga ka soo go'day yoom qiyaama lagu weydiinayaa walaalkaygu cunugaaga ilaasho naagtaan shalay isarteen meel kala deji laakiin cunugaaga ilaasho xataa anigu waxaan arkay oday fiican hadda ka hor oo cunug yar aad u dhaqaaleeya oo markuu yimaado magaalada degan markuu yimaado cunugta la hadla oo waraysta oo naagti waa la culowdo wallahi anaga way xusuustaa dhowr isugu soo baxan markii dambe waan waqti hore ahayd intaan aan ka yeelan waxaan walaal macaan maxad kartaa ilma yarka nooyaan odaga wuxuu sheegtay ma qaani qolkii la gasha asaga yiraahdo kaal aab buu yiraahdaa markuu kasoo dhamaar ku dhahay oday aad khayr u ah wallahi waxaan xasuustaa iyadoo gaadhay gabadhaas buu la sheekaystay hay furo haba ifuro dhoocishaas ma arki kare na dhoocishadiisa meelan geey ma qan waraju yiri I don't know hooyad meel ka aadi ayadu waxay dhayso hooyadu uu furay ayada dadka waxay dhaayeen waraju aqoon badan oo aan lahayn familka laakiin waa isku dayna in xataa gabarkan noo sheegtay wallahi waan xasuustaa gabadhu lu faraan baan ahayn lugahayga ugu taganay galba gabdho kale walaal ma ilaahay ka cabsi waliba inta hadda ma hinda waqti hore to tumas ka soo wareegtay aan aad uga yaraa intaan na walaal ma yarka iska daa na walaal ma iska daa madeenis hadday cunugtaas ula hadlayo ha ifray la soo istaagtay markaan uu shaqo horta ma aqoon laakiin tan chance uu heli hasan furba oran la istibdada uma qalantay inaad qabtay hadday cunugaaga arki weysay أنا سأسا أوران لها لكن ما أوران وايو أنا واقع سقف يربع إسكاها نكون نوي نشيقو أها لكن إني بلايت هاي ونوي بلايهين ومعجزيهين إلا يرانتي دي بانوغا إما سان أركي إدد بيسا حتى كور كي وحنكو أركي مد القبض ما لي دبك كيلو قد تشنجري كي دبك ساس لوغو سو قايد شد حش إلا أمسا إلا المخرب أدعويا يا كلمت معاه وساعده لدها هلا دعيست اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ساعة الإجابة دي الجوجا إله ربي ونودم بداف إله ربي ونودم بداف إله ربي وقف في إله كل من إله وقف في إله وحنا أركي كي دبكة اللوسو قادي ناك أنو ير ونكذو للوهيسة وكل دجسي هكا ودجسي شيء وحنا سوست هالكاسنا وقدجس ما حسوست هالكان ما قال مeel kale dhigta agteedan ugu soo dhijis hadda geedka oo weyn ka wad aragteen waay geel inay suntaysa ma ogiye noloshada gabadha wax iska ma goy doona wallahi waan xasuusta eeyideed aabaheed dhalay ayaa keentay gurigay keentay odagii u keentay xaaskiisii magaalada Nairobi meel ka gashay baan u maleynaa meel in aadi college hadda muddo yar bay haysay ogow umaleey ma 3 wiil 4 wiil ka badnayd gabadhaas markay gubaysa gabadha maxay u gubtay mid yar oo 2 sano amal jirto soconaysa ay oo asagu u dhashaa joogtay gabadha iga tuurta gabadha kor u qaaday hadda ilmo kor u qaaday dabcan waa ka dhacday gabadheeda tuurtay gabadheeda way daqrantay inay qalqalinayso waa ogeyn لكن صبحي مركا أنا قبل أدمود جيل لصنطو كلاته برت مدو حتى وانا بعها واقع سامر مرد حتى برتس والله وانا بعنجري وحنا تي بيدلو قبي وانا يجري مركا ولا عليه ومسنو هذا ولا الكيو المها غير شو ناك والهلا لكن ilma lama helo naagtan xaqa naagnimada isku leedihiin shalad ama tay birna waad kala tagi kartaan ama way dhiman kartaa ama way dheeraan kartaa ama way ku nici kartaa ayadaas ku nici kartaba inta ciyaalka hadda fiiriya hadda ninka odaga fiiriya say wiilka ugu direysay heer ay inta soo kaxaysa guriga keento tiraado wariya carle soo bax walaa nina ku tumaay ma wiiliyo la tinjiro Soomaaliya oo nina ku tumaaya guriga aabisa ka tagay kama tagay walaa ina ka tagay inuu leeyahay ninka naag soo saarto hay tumee odagii markuu yimid
aabbo cidna kuma tumaysaan macaan badan oo iska bax ila rag baaba leeshoo dhahay ee guri ka ijaar u bixiyo muu dhihin xabad buu babac ku siin ay maxay soo taqaanaa odagii oo meesha meydka meesha la cararto nagast barina maxaa adeer ku xilm taqaanaa adoo wali aan lagu xukumin ay nin kala guursanaysaa wiilkaagina way ka dishay adigina xabsiyaad ku jirtaa ilaahay inuu ka soo baxshaa rajaynaa maxay ahayd ayadiina fakataa fakama fatuura maxaa qosay shaydaan naag laga soo dhigay baad aragta dadka hal iska tijaabsho bal naagahan marka ugu horeyna caruurtadii ilmahayga marabta haddaad diidina waa ku furaa bal contractaha la sii kala bal 20 cunuga luuqan igu sii jira haddaad caruur dhalin xataa saasa la sii dhaho sayara kaaga maarta kaaga degaan oo hadday shaydaan yihiin kaaga tagaan hana laga coodi bilaysto waxaana laga istiqaarayso guurkaan walaa guurkaan laga istiqaarayso dhibaato badan u leeyahay midda kale saxaabi waxaan ogaaday in ka tagi rabaaye ayaa jirta Soomaalidu horta waxun bay iska fuulaan laakiin bil xaqiiqda markaan u hadalo aabaha hooyada qaba iyo hooyada aabuhu qabo laba qof oo isu dhow maahan aabaha hooyadu step fatherka adeerka hooyada qaba ama step fatherka waxa la yiraahdo ayaa 100% ka wanaagsan naag kasta oo aaba qabo waxaa laga yaabaa raggan wada ilaahay baa baraka dhigay oo naag ka sare mashay waxaa laga yaabaa 10 nin hadii 10 step father hadii jirto 10 adeer hadii jirto laba inay xuntahay labo inay xuntaa laga yaabaa laakiin ogaada Soomaaliya meel ku qorto ku xariiqda hadii 10 eedo oo aaba qaba ay jirto 8 xun ma wax isu dhowba maya aniga aaba xun ay ugu soo aaday aabayaashu ma jaayfeenayo halahaas aan dhammahay ayaan step father arkay aabayaasha aan u dhaweyna arkay waa buuxaan gabdho badan baa haysta hooyooyin badan baa haysta intaasoo waxaan aragnay oo aabe oo gabdho oo aabe soo kuriyay step father soo kuriyay waxba aan la yeelinin madaxa korkiisa ku soo koray waragu ma wada xuma laakiin naagaha way xun yihiin maanta runta in la sheego way qaraartaa ogaada aniga laakiin barna musa la dhaha run kasta oo qaraar wallahi xadiisan ka gala aniga walul xaq u nabi alayhi salaam qaraar sibir baa ahaaday walow kaana mur waa hadlaya naagaha iyo ragga step fatherada worst waa step fatherada fiican waxaan laga yaabaa inay disagree tiraadaan it's okay to be disagree inaad tiraadaan barni maya way ogolahay laakiin ani my experience-gayga yes so that's one u leeyahay hooyoy gabaray nin ilmo laha guursan haddaadan cadaalad fali karin jacaylkaaga haddaadan jacaylka ilmaha aad ku dabaqi karin nin islaamiyadan jeclahay ilmihiisana ma jecli don't say that waxaas waa lii waay arrintaas ayaa ugu muhiimsan aabayaashana aabayaasha fiican istaabadarada fiican Allah xafido hooyooyinka fiican oo 2 ama 3 Allah xafido iyagaba waa laga yaabaa in dad eedada soo korisay aabahay qabo ii fiicnid waligay ma arkin horta ani salaam jaamadeega soo waan inay jirto ayaa dhici karta waxaan sameeynaa marka kuwa wanaagsan ilaahay khayr siiyo laakiin kuwa kale oo ilaahay ka cabsada ilmaha ay raggan dhalay ilaahay uga cabsada raggan waxaan walaalo ilmaha ka dayac tiro hadaa hooyada ka qaateen islaanta ku haleyneen intaan dib dambe ku kulmi doono dib dambe inta isku arki doono ma qalb baa jooga hadalka markaan oo kale ducada la bayan wayna duceynaya adinka ay soo duceeyay wayna duceeyay soo duceeya anigana way idin soo duceynaya haduu ilaahay yiraahdo marka ilaahay hana xafido qofka dhibka Allah ka saaro qofka dhibta loo siyaarso kan xanuunsan Allah caafiyo kan jiran maartii jirada Allah ka qaado kan dhibka la qabo dhibka Allah ka qaado kan murugsan murugta Allah ka qaado ilaahay subhanahu wa ta'ala kan xiran oo xaqdarada Allah ka soo saaro maartii ويا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي آخري أدون معرتها سكا يعفيو يقرأ لي هذا ما برنامج ما أنا ودني أنا تذكرت أنا بينان إذا لا شيء قال إنك لا هذلو الاسترس كان إنسان سارو آد ما يدين تعال هاي
وحبدنا إذا كو هاي قلبي جيجا مركان استراس نقدر مركاين سوقلو دجا عادي هذا أمهات سنتين مالك السوق دون كده فيه سيد علي كجوكتان ماشي النبي عرى الأمر الله هيدن كجديجو إلهي مال خير قبت هيدن كجديجو قفل بابا ماشو كتبنا هاي إلهي كتيريو إلهي سبحانه وتعالى حسوك يا أفعلي مسابح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي أنصحي إلهي سبحانه وتعالى يقرنسيي وحي أنقلدنا الله يقعفيه انت مرضى مكوكل مدونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.